السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وإن سلام يا سلام كديب إن الله وإنا إليه راجعون وحنا هلكان أنو تعسيين يا ويل كدلن يردا إذا ماذا أميسون أي gaariga ku jirsiiyeen deegaanka ceelasha biyaha Cabdiraxmaan Faarax Fiidow runtii waa naxdin kale arin kale oo naxdin leh ilaahay waxaan ugu bariyayaa samir iimaan anagoo dhan iyo ehelada qaraabada ilaahay inuu naga siiyo waxaana xaqiiqo ah Amazon ma ahan markii ugu horeysay ficilada noocan oo kale ay geysanayso dhowr marna horena way u geysatay dhibaatooyinka noocan oo kale ah Muqdisho dhax bartamaheeda magaalada ay dad shacab ay dhowr mar gaari ku jirsiisay cid wax iska weydiisana ma jirto marka waa dhibaatooyin iska caadi ah iska soo noqnoqdo waxyaabo kale oo waxa jiro ay Amazon ay geysatay kufsiga gabdhahana waxaana u diiwaan gashan kiisas aad iyo aad u tiro badan oo runtii waxa kamid ah sheeko mar aan aqriyay gabadhii Saara ahayd oo wakaladan wararka foreign policy journal.com ay daabacday taa oo kaliya ma ahan hay'adaha xuquuqda insaanka kale sida Human Rights Watch soo kaleeto waxay daabacday warbixin ka kooban ilaa 71 bog oo cadeynaya kufsiga iyo tagrifalka ay Amazon ka geysatay gudaha Soomaaliya waxyaabahaas oo dhan waxa iga daran aan la yaabaa dawladda Soomaaliya meel inay soo istaagto oo dhahayso ma arkaysid Amazon waxaanay geysatay waa ficilaan ka qabanayna ama dib waxaan sameeynayna xitaa lama arko dhaqdhaqaaq yar ayagoo sameynayo waxaan xasuustaa ra'iisul wasaarihii hore Roble ayaa mar wuxuu yiri 24 saac gudaheeda ayaan 48 saac gudaheedan jawaab u baahanahay dadkii oo Shabeelle Dhexe meel kamid ay ku dileen ciidamada Amazon oo beerahooda qodanay ilaa 7 qof ka koobnaa sida la sheegay dadka nolosha ay ku gubeen marka waxaan isleeyahay Roble waaba yar dhiirnaayo inuu intaas yiraahdo kan hadda meesha joogo uu iska aamusan yahay oo asaga maxaa la yiraahdaa waxaad u moodaa inuu cod ka dhintay in kalaba inuusan uu ka aamusan yahay waxa madaxweynihiina de hadal ma jiro kan xitaa waxba kuma eedayo kankii ka horeeyay xitaa sidoo kale kama hadli jirin kiisaska noocan oo kale oo ummadda dhibaatooyinka loogu geenayo maxaan madaxweynaha ku eedeynaa aw ragga kale ku hoosii aw baarlamaankii aw dadkii kale marka de waa wax qofka Soomaaliga inuu dhinto wax qiimo weyn inuu ku fadhiyo looma haysto maanta maxaa yeelay nin walba meesha fadhiya waxa keensaday waa qabiilkiisa waa 4.5 ku yimaaday adiga maxay tooyan hadalka kugu sii badbadinina waxa meesha ka jiro oo ku baabaayo waa shacabka wax mustaqbal la'aan la kulmayo waa dhalinyaradeenna intana waxa ka dagaalamaya waa dhalinyaro intana waa wax ka dagaalamaya waa dhalinyaro dhibaatooyinkaas oo dhan macnaheedu waxa ugu wacan nidaamka dawladnimada annaga aan haysano dhalinyaro hal istaago hal la kaco sida Amazon ay gaari maanta ay wadooyinkiina wadankiina gudihiisa ay gaareen ku jirsiinaysa qaarkiina ay badaha ugu dhamaanayaan kuwiina kalena ay dalalka kale ee Yurub ama meelaha kale ay ku sugan ay ku duruufsan yihiin ayay diilkiina dambana ay ku dhibaatoon doonaan haddaadan adinka maanta istaagin oo danihiina aan u istaagin xaqiiqo inta aad adinka hurudaan dalkan horumar iyo isbedel kama soo socdaan ee Soomaaliya naf isgiliya waxaana la joogaa waqtigii isbedel lagu talaabsanayo wad maasantiin
tashada cadawo isku tiirsanada ka tashada cadawo